booliiska koonfurta Wales ee UK ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay raaligelin siinayaan qoyskii uu ka geeriyooday kadib markii la dilay 1952 ninkii Soomaaliga ahaa ee lagu magacaabi jiray Maxamuud Mataan oo isagu Soomaali asal ahaan haystana dhalashada Ingiriiska kaas oo la xiriiriyay in uu dilay haweeney iyada dukaan iska lahayd si qaldanna 70 sano ka hor dil loogu xukumay kadibna la dilay. arrinkan isaga ayaa waxa uu ahaa mid aad iyo aad uga yaabiyo guud ahaanba xilligaasi dadkii joogay mar haddii booliisku si khaldan ay markaasi u soo qabteen kadibna la maxkamadeeyay iyadoo cadaalad darro ay tabanayeen 1952 Maxamuud Mataan la daldalay laguna daldalay xabsi ku yaala dalka Ingiriiska. wixii markaasi ka dambeeyay qoyskiisa ayaa waxay u ololeeyeen sidii ay cadaalad u heli lahaayeen taasi oo keentay 46 sano ku dhan in ay daba joogeen sidii loo ogaan lahaa xogta runta ah oo ah Maxamuud Mataan inaanu dilin haweeneyda lagu eedeeyay inuu dilay ee magaalada Cardiff haweeneydaasi oo lagu magacaabi jiray Lily Volberty oo la sheegay iyadoo dukaankeeda joogta inuu dilay laakiin arrintaasi haba yaraatee aanay waxba ka jirin. 46 sano kadib markii ololeynayeen afadii uu ka geeriyooday oo lagu magacaabo Laura iyo saddexdiisii wiil oo kala ahaa David, Marvin iyo Umar intuba marna kama daalin inay cadaalad helaan iyadoo waliba sanadkii 1998 rafcaan loo qaaday si markaa loo ogaado xaaladda dhabta ee jirtay iyo sababta loo dilay Maxamuud Mataan isagoo haba yaraatee wax dambiyaan gelin. 7 sanadood kadib sanadka 2022 ay raaligelin ay soo bandhigeen booliiska ee South Wales ee UK iyagoo sheegaya si khaldan in ninkaasi Maxamuud Mataan loo eedeeyay kadibna loo xukumay kadibna loo dilay laakiin ay cadaatay dambigaas haba yaraatee aanu lahayn. waxa uu kamid ahaa badmaaxiinta Soomaaliyeed ee iyagu waqti hore yimid UK laakiin arrinkaas uu ku dhacay 1952. arrintan iyada ah ayaa reerka ama qoysku waxay ahaayeen kuwa aan ka daalin laakiin si aan marna helin raaligelin wixii ka horeeyay maalinkii maanta ahaa balse sanadkii 2001 ayaa qaybta arrimaha gudaha ee wadanka UK qoyska waxay siiyeen magdhow ay markaa ula jeedeen dhibka dhacay iyo aabahood in la dilay 1952 iyadoo haba yaraatee aan la ogeyn dambiga loo haystay cidda gashay laakiin isaga lagu fuliyay balse iminka ay cadaatay wax shaqo inaanu ku lahayn. waa marka la fiiriyo dambi dhacay laakiin dib u eegistiisa ay uu kamid yahay dambiyada sida dhifta ah loo eegay ee la fiiriyay la raadiyay lana ogaaday Maxamuud Mataan inuu ahaa nin aan haba yaraatee eeda loo haystay aan gelin ee Lily Volberty dadka dilay ay ahaayeen dad kale walow aan la cadeynin. arrimahaasi waxay ahaayeen kuwa dhowr jeer warbaahinta lagu soo qaatay laakiin aan faahfaahin laga bixin balse iminka haddii reerka 2001 la siiyay magdhow markii ugu horeysay ayay booliiska waxay ka helayaan raaligelin ku saabsan in aabahood Maxamuud Mataan si khaldan loo qabtay si khaldan loo xukumay si khaldanna loo dilay 1952.